baba ugu bada ama kugu dilan kugu dolraba abogaga hada solaba wala yaba waxa samayso dhan wala xisaaba cadowga dhalinyarada wala xisaaba adayaba qarmoon way dhaaftay heestan waa hees aad iyo aad u karbaasha oo lagu karbaashayo dadka ku socoto iska wada garanaysa adiga daawanayo ama adiga codkayga dhageysanayo waa iska wada garanaysa qofkii ku socoto ama qofka loogu dalayahay hadii aan wada garanayn ama qofkii ku socoto ama qofka loogu dalayahay erayadan kulul erayadaas oo ah erayo oo inaba caadi ahayn oo raabkii ah 2021 raababka ugu casriyeysan ama erayada ugu casriyeysan oo fanaan Sharma Boy ku heesayo heestaani waxay ku socotaa ama ay loogu dalayahay ama erayadan lagu karbaashayo ama karbaashkan oo ku socda karbaash oo ah Ahmed Rashid ama iyo saaxiibkiisa Daahir Calisow karbaashkan waa karbaash labada qofood oo ku socdo oo ku karbaashayo ama ku luuqeynayo heesta fanaan Sharma Boy oo ugu dalayahay ama karbaash xunno ugu geysanayo Daahir Calisow iyo Ahmed Rashid waxaana sababay in ay karbaasho ama ay karbaashkas uu la dhaco fanaan Sharma Boy ku kasbay in uu sidan u karbaasho ama uu waqti galiyo ama hees oo soo duubo ama waqtigaas ama juhdigaas oo galiyay wuxuu ku kasbay ama ay ugu dalayahay ama uu karbaashay sababta tahay hees fara badan ayuu ku karbaashay labadaas qofood aan hor u soo sheegnay iyadoo la og yahay dhibaatada ay u geysteen Shaku Baba labada qofood Daahir Calisow iyo Ahmed Rashid taas oo lagu jirdilay ama jirdil far badan loogu geystay Shaku Baba magaalada Nairobi caasimada Kenya dhibaatadaas oo loo geystay ama jirdilka loo geystay Shaku Baba waa mid qof walba Soomaali ah oo ka xumaaday sida loo jirdilay oo isaga xitaa uu sheegayo in ay ku dhawaad 10 qofood ay jirdileen ee ku xareysteen baawur ee ku wateen jirdil faraxoon ama jirdil aad iyo aad u daran ay loo geystay Shaku Baba sababaha lagu jirdilay iyo in sidan loo dhibaateeyo ama in ay dhibaatadaas dhan ay soo gaarto ama wajigiisa soo gaaraan ama jirkiisa ay dhibaatadaas aad iyo aad ku fara badan ay soo geystaan ama loo geysto waxa kasbay ama ay ku dhacday sababtaas in uu u muujiyay taageernimo fanaan Sharma Boy marka sababaas ayaa keenay in jirdil loo geysto ama la dhibaateeyo ama dhaawacyadan faraha badan loo geysto Sharma Boy wuxuu muujiyay sinay Shaku Baba karbistaan iyo taageernimo wuxuuna soo qaaday heestan oo ku karbaashayo Daahir Calisow iyo Ahmed Rashid labadaas qofood oo ahaa labadii qofood jirdilka u geystay ama dhibaateeyay ama u adeegsaday bulsho kale ama asxaab kale Shaku Baba waana YouTuber Sharma Boy waa fanaan marka sababahaas ayaa kasbay in uu Sharma Boy oo soo heeso ama u muujiyo Shaku Baba in uu ka xun yahay ama dhibaatooyinka loo geystay dhibaatadaas oo ah in ay madaxa ku soo gaareen ama dartiisa fanaan Sharma Boy oo u muujiyay taageernimada ama saaxiibtinimada waana mid aad iyo aad looga xumaado in jirdil loo geysto YouTuber saameyn fara badan ku leh social media waana wax aad looga xumaado